hore annaga dalbanay inaan idin la kulanno kulankanagu wuxuu ku saabsan yahay maadaama aan isku xirkii iyo amnigii gobolka aan xaqiijinaynay oo ciidamadii iyo maamulka aan isku xirnay inaan duqowdii iyo salaadiintii iyo ogaasiyadiina aan ishelno si ayagana aan u yeelanno kulan midaysan oo ilaa heer gobol ah. luuq waa meeshii markii hore aan ka bilownay nidaamkeeni xasilinta. waxaan rabaa marka wixii dhaliil ahoo intii shaqada aan wadnay inkastoo ayagana wax la ku kulmeen haddana bulshada meeshay ka fiyoobeed waxay ahayd odayaasha waay. waxaan rabno marka waxay tahay odayaasha degmada luuq ee deegaanka nabadgelyadiisa iyo isku xirnaantiisa aan ka wada qayb qaadano iyo la shaqaynta maamulka iyo amniga. taa markaan leenahay waxaa weeye meeshaan u soconno waxaa waaye inaan xaqiijino in ay bulshada iyadu u gudubto inay dhisato maamul ayada ka yimaada. waqti dheer reer Jubbaland waxay u sacyinayeen inay gaaraan in degmo kasta ay dhisato councilkeedii oo ay xaqiijiso maamul bulshada ka dhex yimaado baarlamaan leh oo halkaa guddoomiyaheeda lagu doorto. waxaan rabnaa marka dhisidii waxaa la isu diyaarinayaa Jubbaland. doorashadii hore waa tii halowday oo beesha caalamka iyo dowladda federaaligaba diiday. annaga reer Jubbaland marka waxaan rabnaa inaan yegleelno inaan Jubbaland isku xiran iyo doorashadeedii xor iyo xalaashahayd ay dhacdo. intay taa ka imaanaysana waxaan rabnaa inaan isku tashi samayno. isku tashigaasoo ah in gobolka iyagu isku xirnaado. Jubbaland saa la socotaan waa 15 degmo inta hadda recordingkeeda ku jirto. 2 degmo oo hadeer markii laga bixiyo marka inta uu shabaabka gacantiisa ku jirto intaas waxaan rabnaa in tala aan ka yeelano sababtoo ah bulshada ku nool Bu'aale iyo Xagar iyo Jilib iyo waxay u baahan yihiin sidaan annaga amni iyo nabadgelyo iyo horumar iyo dowladnimo ugu baahanay ugu baahan yihiin. waqti dheer waxay la nool yihiin gacan kale ku jiraan oo cadow. waxaan rabnaa annaga reegado maadaama gobolka naga muddo uu xor ahaa Jubbaland hadda gobolka ugu weyn oo hadda saakayto lahayo u yahay inaan ka qayb qaadano qabashada Jubbada Dhexe si ay dowladnimadu waqtiga ay ka maqnaayeen ay u helaan ayagana. taas oo iskaalmays leh wixii aan ku kaalmeyn karno dhan inaan kala qayb qaadano walaalaheen inay ka xoroobaan cadowga gacantooda ku jira. caasimadanadina halkaas ay jirtaa Jubbaland oo gacantaas ay ku jirtaa cadow in laga soo dhiciyo oo sida ugu dhaqso badan ay ku noqoto meel xor ah oo dadka looga talin karo. waxaan kaloo rabaa adduunku waa garanaysaan majority isku maamulaa. annaga Jubbaland xorta maanta lahayo 2 degmo Afmadow iyo Kismaayo markii laga bixiyo 7 kala geday yaalaan. hadday doorashadii xumaatay intaan doorasho kale ka tagayno annaga majority ah waa inay annagana maqlaan 2 degmo kaleeto. waa gogol dhigaynaa gobolka maqan qabashadiisa baan ka fikiraynaa. inta aan haysano wada dhishadeedii baan ka fikiraynaa. ma nin hal magaalo intuu fadhiisto Jubbaland oo dhan aniga waa inuu dhaho annagana aan madaxa foorarino sax ma noqonayso. waxaa sax noqonaya adduunku waxa waaye qof kasta waxa uu yahay in lagu qadariyo waaye. hadday gedo hadeer intaanoo degmo ay taal oo Jubbaland nahay inta xorta oo saakayto shabaab aan la jirin 2 degmaa naga maqan. gogoshaas annaga iskale dhismaha ah iyo dadka reer Jubbaland oo walaalaha inaan isu keenno. dadku waxba isuma qabaan. nin siyaasi oo kursi doon ahoo asagu rabay inuu wax boobo iyo wax ka halaabeen ummaddu uma rugmaysa. marka waa inay tala ummadeed ay timaado. waa inay dadku isku tashadaan. waa inay dhismahooda iyo aayahooda ayagu ka fikiraan. meeshaas waa meesha aan rabno
inaan aadno marka u dambaysana Jubbaland ninkii xasuusan ama hawlaheeda ku dhex jiray 7 sano ya councilka 4 degmo oo geda kamid loo ogolaaday 6 sano wasaaraddeeda arrimaha gudaha iyo madaxweynaheeda waxa laga bariyay inay dadka u ogolaadaan inay councilkoodi dhistaan maanta lagu murmeen luuq maamulkeeda xagee laga soo dhisayaa iyo yaa keenay idinka keeni lahaa odayaasha 4 sano mandate uu heli lahaa 4 sano markay ka dhamaatana hadan idinka dooran lahaa gudoomiyana halkaas laga dooran lahaa cidii hogaanka haysay waa diiday talada ay lahayd inay noo fasaxdo ayagoon lacag laga rabin ayagoo meeshii budgetka lagu bixin lahaa lala kor taagan yahay la leeyahay annaga lacagtii hayno wax lagu qaban lahaa dib heshiisiinta iyo dhismaha amniga iyadoo la xaqiijiyay oo deegaankii iyo magaalooyinka ay amni yihiin waxa looga samray inay aqbalaan inay dadku wax sameystaan haddana sidii loo socday hadee doorashadii waa tii xumaatay hadday xumaatay oo nimankii ay doorashadii ka xumaatay inay ummaddu tashan weyso ayadoo dhan ay wada xumaato ma aha taladan waa inaan annagu isku xir sameeyno oo deegaankanagi amnigiisa xaqiijino maamulkiisa xaqiijino isku xirkiisa xaqiijino taa waa talo midaysan annagoo ah oo maamul iyo oday iyo ciidan iyo dhalinyaro iyo hooyo isla soconna oo wada xaqiijinayna inaan noqono bulsho dawladnimadu ay ka wada go'an tahay inay wadadeedii qaadaan inaan wada soconaan rabnaa waxaan kaloo rabnaa degmada hadda aan ku noolnahay luuq intii doorashadaas ay ka dhamaystirmayso maamulka aan meeshaan ka yagleelnay waxaan rabnaa mid la xisaabtan la inuu noqdo oo meeshuu wax u wado iyo waxa uu samaynayo wax la garan karo oo la xisaabinayo la daba taagay inay noqdaan waxaan rabnaa dhaliilaha arkaysaan inaad dhihi kartaan wixii khaldan oo maamulka uu samaynayo odayaashii dhaqanka iyo deegaanka tihiin soo jeedintiina la maqlaaya diidmadiina la maqli doonaa waxa tala ku yeelan doontaan deegaanka arrimihiisa iyo sida uu u shaqeynayo waxaan rabnaa annagoona qabiilku